وأنكم مقلة يا حمدي. xildhibaanka maanta waa ku dhibnayna kugu soo laabana ma ahayn annaga Soomaalida markii gadaal taagna waxay isleeyahay dhalinyarada way wasan doonaan ujeedka maanta aan kugu imaanayno oo shirka Israa'iil annaga waxaan u fahansanay in ay tahay xalay nashika waxaa laga soo deynayay TV-da Farax Macalin oo qaylinaayo oo ka hadlayo warqad uu leeyahay waxay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo Soomaalida bariyo isniina waa la raafaa amal loo diyaariyay xero ku taalo tika oo ilaa 17 oo Soomaaliya la celinayo xariyaad in dadka la geenayo marka ujeedada xalay isliin lagama seexan wuxuu sheegay in arrintaas aad ka warqabtaan u fahmaanay ujeedka daba saakada Soomaalida inta u yimaadeen wariyada waxay ahayd dareenkaas dadka ay qabaan wixii xildhibaanku ka qabo hal weydiyo waatahay anigu hadda waxaan eri markii shirka la iga weydiiyay arrintaasi warkaasi war sugan oo dawladda ka soo baxay ma aha ilaa iminkan anigu war rasmi ah oo dawladda Kenya ka soo baxay oo arrintaasi ka hadlaya maan arag marka waxaan oranayaa warkaasi inuu yahay war suuqi ah oo waxbana aanay ka jirin waraaqdana ay tahay waraaq ka soo baxday meel aan la garanayn marka dadka qaxootiga ee halkan jooga inaanay cabsan sharci bay wadanka ku joogaan dawladda Kenya ogolaatay inay qaxooti wadanka ka noqdaan habeenimo intay soo gudbeen ma soo gelin Kenya maalin cad waraaqooda la siiyay waana laga warhayaa wadanka inay joogaan marka anigu waxaan oran lahaa wax cabsi ayaan gelin diyaar baan laakiin u nahay sida Farax Macalin ooga hadlay arrintaasi hadii ay dhacdo inaan ka hadalno oo aan cambaareyno toosna uga soo baxno laakiin se iminka anigu waxaan isleeyahay warkaasi waxba kama jiraan dawladana awood ay xira cusub ku furto ama samaal cusub dadka ay geyso ma haysato budgetkii hata lagu qaban lahaa hawshaasi ma haysato marka ma filanayo in walbahaar weyn uu dadka qaxootiga ee jooga Islii ama Nairobi uu arrintaasi u ka galo